degmada Jariiban iyo deegaanada hoostaga waxay gobolada kale ee Puntland ay kaga duwan yihiin lama taabto deerada iyo xayawaanaadka kala duwan sagaarada iyo xayawaanka kale ee ka mid kahayna warkooda badaa qofkii dila qofkii la arko isagoo ugaarsanaya waxaaba uga degan dadka deegaankaasi sharci gooniya oo ay ku qaadayaan qof walba oo bulshada kamid ah oo ku xadgudba ugaarta deegaankaasi ku nool waxaan ku sugannahay deexda garacad ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhulka nimcooyin fara badan ayuu dhigay halkan badiiba gadaasheena ka hogmamaysa barwaaqo iyo kalluun iyo argoosta iyo nimco waxa ku jira waa in soo aragnay halkan kaawadi cusbada ku taalo waxa weeyaan maalgelin uma baahna ilaah baa meesha ku beeray waxay u baahan tahay cid u timaado jawaana ku cabaysato iib geysata waxaynu dhex fadhinaa waxa weeyaan dahabka iyo shidaalka dadka ilaahay siiyay waxa uu dhigmo inuu ka qaalisan waa nimcooleyda xoolaheena gaar ahaan idaha oo meesiyada xoolaha ugu qiimaha badana waxa weeye nafac badan bay leeyihiin qof walba Soomaaliya waagu markuu bariyo wuxuu u baahan yahay oon xoolaad ama hilib buu u baahan yahay ama caano u baahan yahay ama subag buu u baahan yahay haragoodeenu dhoofinaa hilibkoodeenu dhoofinaa markaasaan shidaal iyo sonkor iyo bur iyo bariis iyo bagaash iyo daawo iyo dhar iyo wax walba aynu u baahannahay aynu ku soo iibsanaa nimcadaas waxay u baahan tahay marka in laga fakaro waxa looga fakaraa waxay u baahan tahay geedkaasi ku nooshahay deegaankii ku nooshahay deegaanka inaynu ilaalino dhulka inaynu ilaalino qofkii geed gooyaa qof nolosheeni goynaya inuu yahay inaynu ogaano qofkii geed beeraan qof nolol inoo beeray inuu yahay deegaanka Jariiban ama deexda ama degmada Jariiban ama xeebta garacad waxay caan ku tahay waxa arkaysaa idihii iyo deeradii baa wada daaqaya qorayadii baa ina ka fogeeyna waata iyaduna muuqaalkeedu halka is ciirsanayso oo barwaaqa waa dhul loo soo dalxiistay karo wasaaradda deegaanka iyo dalxiisku Puntland meelaha ugu qiimaha badan oo loo dalxiisay inay tahay ayay meeshaan waxay daliil u tahay inay yimaadaan gobolada Puntland oo dhan dhul dalxiis bay leeyihiin oo barwaaqo ah laakiin xeebtii iyo xoolihii iyo ugaartii iyo isdhex daaqaya waa nimco u baahan in loo soo dalxiis tago adduunkana loo xayeysiis geeyo dakhli fara badanna waa ina ka soo galaya ammaankeedu waa sugan yahay ciidamada Puntland iyo bulshada isku duuban ayaa ammaankeeda sugaya cid ammaankeeda wax u dhimi kara lama kii udugii amaanan khayraadka dhexdiisa buuxa hadduu dham iigu deeqay inaan dhowraa xaq weeye inaan dhowraa xaq weeye kii udugii amaanan khayraadka dhexdiisa buuxa hadduu dham iigu deeqay inaan dhowraa xaq weeye inaan dhowraa xaq weeye kii farxaad bee Soomaali haddaan ku dhaashoon ku kaabay haddaan ku baartoon ku dheefay haddaan ku baartoon ku dheefay inaan dhowraa xaq weeye inaan dhowraa xaq weeye kii udugii amaanan khayraadka dhexdiisa buuxa hadduu dham iigu deeqay inaan dhowraa xaq weeye inaan dhowraa xaq weeye kii udugii amaanan khayraadka dhexdiisa buuxa hadduu dham iigu deeqay inaan dhowraa xaq weeye inaan dhowraa xaq weeye darkaaga mid ahaan ahayn waxaan maceel shaala yiri taada haddee dotaa darkaaga mid ahaan ahayn waxaan maceel shaala yiri taada haddee dotaa